cududda tiimka Puntland waxa weeye waa koox dhan walba ka dhisan oo aanu soo xulanay insha Allah si ay uga qayb galaan tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya oo lagu qabanayo Jubbaland insha Allah 24 saac maalintii waxaan ku jirnaa inta badan tababar diyaar garow ah oo aan labada gelinba qaadano si aan u qabanno shaqadii sanadka hore aan qabanay shaqo ka adag kana badan oo aan rajaynayno insha Allah tacaala inaan guul ku soo hoyno tababarka guud oo aanu sameeyno waa 3 qaab weeye tababarkaasi wuxuu kala yahay physical conditionkii oo maaragtay kooxdu inay awood u yeelato inay 2 saac iyo ka badan ba ay ciyaari karto xeeladii iyo farsamadii iyo tacticadii iyo isku xirkii iyo xamaasadii kooxda intaas baan waanu sameeynaa barnaamijkan waa barnaamij muddo aan soo agaasimaynay xulka qaranka wuxuu ku jiraa diyaar garow waxay sameeyaan aalmitooyin kala duwan galab subax habeen waqtigoodana waxay ku qaataan si jadwal loogu talagalay kooxda tani waa koox haddeetadan muddo wada aalmiteynayay insha Allah marka waxaan filayaa ama aan isleeyahay koox awood leh oo dhan walba ka dhisan inay yihiin oo matali kara Puntland insha Allah waa xulkii ugu fiicnaa ee aan arko intii aan Puntland joogay dhalinyarada aqoontooda dhismaha jirkooda xirfadooda waa dad lagu soo xulay aqoontooda waxaana laga soo dhaxulay 253 ciyaartoy oo horyaalkii Puntland ka qayb qaatay tiimka horena waxa tiim fiican oo aad u diyaarsan tiimkaana runtii waxaan oran karnaa waqti badan baa lagu bixiyay waqti badan baa hadda la diyaarinayay waxaan rajaynaynaa tiimkii hore inay dadka ilowsiiyaan oo ay la xasuusto insha Allah tacaala sanadaha dambe tiimkan maxaa yeelay diyaar garow fiican baanu galay waagii hore waxay ahayd waqti yar oo kooban baanu ku diyaarinay rag xirfad lena way ahaayeen haddana raggii iyo rag lagu soo siyaadiyay baanu keenay insha Allah rajadayadu annaga markasta waxay tahay koobka meel koobka ka hooseysa ma aqbalano laakiin haddii ay tii Ilaahay ku noqoto markaas waa eeganaa laakiin annaga waxaan ku rajaweynaa markastaba inaan yeelano gacanta sare oo aanu qaadno koobka waayo waxaan nahay tiimkii horyaalka ahaa hawl fiican baa la qaban doonaa xulkiina ku kalsoonaada dadka la xulay support gareeya qayb ka qaata goosha waa imaanaysa insha Allah 2016 aan ku diyaar garownay 10 cisho oo kaliya waxaan kalsooni ku qabnaa maanta aan 2 bilood aan diyaar garoobaynay waad u jeedo ciyaartoydan diyaar garowga ka muuqda insha Allah billahi kariim أنا أقول كل صون إيجا إلهي نعنك عشانينه إن كوب كدفاع عندنا مر لبعضنا وقروا كسر دقيقة إن شاء الله بالله